kaasha xisbiga UCID waxaa kulankan kala soo qayb galay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar Engineer Faisal waa gudoomiyihii u horeeyay ee gudoomiyaasha xisbiyada Soomaaliland oo ogolaada u haneeya generationka cusub iyo da'yarta soo koraysa inay hoggaanka xilka u tartamaan isagoo xisbiga gudoomiye ku yahay marka ugu horeysa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay gooni sutaaga Soomaaliland ay goonigeedu sutaagtay isla markaasna gaadhay horumar aan cid Soomaaliya oo maanta joogta ama jamhuuriyaddii hore ee Soomaaliya loo dhigi jiray gaartay aysan gaarin bay gaartay waana u hambalyeynaa waana ku faraxsanahay meeshan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo in walaalkeen gudoomiyaha xisbiga UCID garab istaagii oo garab istaagay haddaan anoo ku hadlayo magaca in dirta koonfureed in Soomaaliya ahna in North America waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad noo garab istaagtay siyaasiyan maaliyan aqliyan dhammaan xisbiga ma moogin in macnaha nala garab taagan yahay waan ka mahadcelinaynaa haddaan nahay dirta koonfureed ee North America reer Minnesota haddaan nahay yar iyo weyn rag iyo dumar waan ku soo dhaweynaynaa sababtaan ku soo dhaweynaynaa waxa weeye kow inta u ciidiina waa xisbigaaga ra'yi baad wadaagtaan inta kalena wadankaad wadaagtaan inta kalena walaalnimadaad wadaagtaan kulmiye waqtigii daahir yaalhaystay waxa jira waqtigii kulmiye waxaan leeyahay maanta kulmiye waqtiga xukunkiisaga haya waxaan leeyahay waa waqtigii UCID ee wadada si nadiif waxaan leeyahay oo kale xisbiga wadani oo la soo kifaaxay xisbiyada kale idinkuna curdi baatiina soo kora wanaga sahaada insha Allah bismillaahir kariim marka dadku waa wada UCID kulmiye oran jiray dadku kulmiye waxa leeyahay war waa maalintii UCID ayaa la isku kaftami ayaan leeyahay talabaad wadanka in la wada yeesho oo aad loo sii xalaaleeyana waa lagama maarmaan haddii kale waan kala daadanaynaa waa la isku sanqanayaa hadhowtana waa la kala baxbaxaya laakiin inaynu citizens noqono oo xaafadan iyo reer hebel iyo bahal hebel iyo waxa laga baxo waa important haddaynaan taa yeelina halkii aynu ka soo orodna baynu dib uga ordi waayo bulaacadaas dib inoogu soo noqonaysa innaka iyo inta Soomaaliland taageersan meel walba ka yimaadaan ee Mareykan degan gaar ahaan Minnesota degan aniga oo ku hadlaya magacayga kan xogeeya arrimaha dibadda kan golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee xisbiga UCIDna waxaan si gaar ah idinka mahadnaqayaa waqtiga aad noo soo hurteen iyada oo maalin Ramadaan ah la soomanaa taraawix lagu taagan tahay waxaana weeyay markaa in taleex iyo xudun meesha la ilaa labada meelood oo markaa laba sanadood la joogo xudunba in loo sameeyo maamul oo sharciga iyo loo lagu soo celiyo ayaa horta imanka la wadaa dawladdu bilowday anaguna aan ku taageernay imka aan doonayna international community aan idhaaho war meesha yaanu bahalgaleen noqonay waxa laga dhigayaa maamulkii oo 23 sano wax horumar gaarin area ma jirto bariga waxaan idhahaa Somaliland Kingdom Somaliland First ayaan idhahaa markaas waa markii waxay taagan Somaliland First bay taagantay markaan u imaado Soomaaliya nasiib darra ku dhacday Soomaaliland baa go'day markii la gooni isku taagtay ayaa dhulka dhan wada land ka dhigno si loo konfiskeeyo adduunka maanta ra'yigan ku socda laba gobol iyo barkeena qolo kasteeba waxa weeye kii xoog weynaa wax keensanaya kii xoog yara wala jeedaya